السلام عليكم ورحمة الله. سو dhawaada saaxiibayaal kuna soo dhawaada qaybtii saddexaad ee sheekadii Amiina Mufti. Qaybtan waxaan ku tilmaami karnaa inay tahay qaybta ugu xiisaha iyo xamaasadda badan guud ahaanba sheekada. Laakiinse ugu horeyntii haddii aad naga daawanayso YouTube channelka subscribe noo saar, haddii aad page-ka naga daawanaysana follow na soo dhig. Haddaba qaybtii hore ee sheekada waxa ay noo mareysay ayadoo Amiina ay la saaxiibtay gabar Yuhuudiyad ah oo lagu magacaabo Sara Beeret. gabadhaas ayaa Amiina u kaxaysay xaafadooda waxa ayna bartay xubnaha qoyskooda si gaar ah waxay u bartay walaalkeed ka weyn oo lagu magacaabo Moshi Beeret oo ah duuliye ciidan oo darajadiisu tahay kabtan. xiriir jacayl ayaana halkaas uga bilowday Amiina oo gabar Carab Muslim ah iyo Moshi Beeret oo wiil Yahuudi Australian ah. wiilkaas ayaa Amiina ka caawiyay inay hesho shahaado PhD ah oo la been abuuray, yacni shahaado bug ah oo suuqa laga soo farsameeyay. kadib ayadoo shahaadadaas wadata ayay sanadii 1966 dib ugu soo laabatay dalkeedii Urdun. qoyskeeda oo ku faraxsanaa heerka waxbarashada ay ka gaartay gabadhooda ayaa u qabtay xaflad soo dhaweyn ah oo aad u ballaaran. maalmihii dabaaldugu markii ay soo dhamaadeen, qoyskeedu waxay u soo jeediyeen in ay ku daraan in adeerkeed, iyaduna haa iyo maya midna ma dhihin. waxay codsatay in waqti la siiyo si ay horgeliso mashruuc in badan ay ku riyoonaysay oo ah in ay furto isbitaal ay ayadu leedahay. sidaas ayaana la isku waafaqay. laakiin intii ay ku guda jirtay diyaarinta isbitaalkii ay rabtay ayaa waxaa khilaaf soo dhex galay ayada iyo xoghaayihii wasaaradda caafimaadka. dacwadeedii waxa ay gaartay wasiirka wasaaradda caafimaadka, taas oo albaabada jahannaba u furtay. buuqii dacwada ka dhashay markii uu batay ayaa wasiirku waxa uu saaray guddi xaqiijin raadin ah kuwaas oo xaqiijinaya dukumiintiyada ay Amiina wadato. guddigiiba wax badan kuma qaadan in ay ogaadaan shahaadada ay Amiina wadato inay tahay mid been abuur ah. si loo sii xaqiijiyo waxaa la xiriiray jaamacaddii Vienna oo ay sheeganaysay in ay shahaadada ka soo qaadatay. kadibna waxa ay soo cadeeyeen jaamacaddu in ay tahay shahaadadu mid bug ah si ay uga dhuumato qaybta fadeexadda iyo guuldarrada ay qoyskeeda u soo jiitay. ayadoo oo ay qayb iyo dulnimo dul hoganayso mar kale dib ugu soo laabatay magaalada Vienna ee dalka Austria. si ay niyadjabka isaga biiso ay wixii guri u bandhigatay wiilkii Yahuudiga ahaa ee Moshi Beeret. Moshi waxa uu ku yiri dhageyso, anigu waan ku guursan lahaa, laakiin waxa tahay gabar muslimada ah, aniguna waxaan ahay wiil Yahuudi ah, sidaas darteed isma guursan karno anagoo labadaas diin kala aaminsan. sidaas awgeed waa inaad ka tanaasushaa diinta Islaamka aadna qaadataa diinta Yahuudiyadda. Amiina ayadoo aan ka labalabayn ayay yeeshay sidii uu rabay, waxa ayna ka tagtay diinta Islaamka iyada oo rumaysay diinta Yahuudiyadda. isla sanadkaas ayuu guurkooda ka dhacay macbadka Shamadood ee magaalada Vienna. xaalkoodu wuu iska deganaa, noloshooduna waxa ay ku socotay si iska caadi ah ilaa laga soo gaaro sanadii 1972. waqtigaas Amiina waxa ay joornaalka akhrisay ogeysiis ay Israa'iil soo qortay oo sheegayay in Yahuudda Yurub joogta ay iska diiwaan geliyaan ciidanka cirka ee Israa'iil, ayadoo si weyn loogu baahan yahay duuriyaal xirfad u leh diyaaradaha dagaalka. mushaarka lagu qaadanayana oo yahay mid aad u badan. Amiina sayida ay u soo bandhigtay inay aadaan Israa'iil si uu asagu u biiro ciidanka cirka ee Israa'iil, laakiin Moshi waa uu ka diiday arrintaas. si kastaba ha ahaatee, Amiina waxa ay ku qancisay Moshi inay aadaan Israa'iil, iyaduna ujeedka ugu weyn oo ay ka leedahay arrintan wuxuu ahaa inay ka dhuumato qoyskeeda oo aad u doondoonayay. bishii November isla sanadii 1972 ayay ka soo degeen garoonka magaalada Tel Aviv. haddaba saaxiibayaal, qaybtan halkaas ayaan ku simi doonaa. waa inoo iyo qaybta dambe, taas oo ay ku jiri doonaan dhacdooyin aad xamaasad u leh, kuwaas oo ay ka mid yihiin baaritaankii iyo dabagalkii sirdoonka Yahuuddu ay ku sameeyeen Amiina iyo dhimashadii Moshi. waxaana idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.